الحمد لله gabadhu horta iyadoo weyn baad aragtay waqtiga uur ku jirtay ee calool ku jirtay iyo intay weynaatado iyadoo labisan oo sharaxan oo quruxsan aad aragtay waalidkan ku diidan baa dhalay soo koriye waxay ka baqayaanna waa dhibkeeda waxay la doonayaanna waa wanaageeda adigu berri maanta waad ka yar heshay berri haddaad isweydaan meel baad kaga dhaqaaqi laakiin ahalkeeda iyo reerkeeda mudan da gabadha guursanayso gabadhan rabaa reerkoodiina ma rabo sax maaha laba khiyaar baa ku furan gabadhii haddii ay ku anfacday iyaduna ay u haysatay inaad anfacday in waalidkoodii iyo reerkoodu ku yeelaan inaan ahayn khiyaarka labaad inaad maxkamad iyo qaadi tagto iyagiina loo yeedho sababtay kugu diideen ay sheegaan sababtaa sababay sharci gar u leeyihiin hadday tahayna adaa gar daran ee qaadigu ku qabto lagu yiraahdo banaanka ka mar gabadhan waad gar daran tahay gar bay u leeyihiin ay ku diidaan haddayna gar u lahayna qaadigu markaa ku qasbo yiraahdo gabadha guuriya hadday guurin waayaanna dhuumaal uma baahna iyagoo fadhiya uu gabadhii ku meheriya gacantan aad qabsato halka waxaa ka garatay gabadha waa lagu diidi karaa sababaana lagu diidi karaa inaan lagu garanayn baa ka mida ilaan gabadh iyo qof bini aadam oo ilmahoodii aad xilkiisa qaadaysaa waa inay kugu aamini karaan xilka waa inay diintaada garanayaan waa inay akhlaaqdaada iyo dabeecadaada garanayaan waa inay dadannimadaada garanayaan waa inay duruuftaada dhaqaale yaqaanaan nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh baa u timid gabadh ciddad ku jirto wuxuu ku yidhi hadday ciddadu kuu dhammaato isoo ogeysay guurkaaga markay ciddadii u dhammaatay u timid waxay tihi laba nin oo saxaabada ka mida baa nin walba ii yimid oo guriga la hadlay nabigu wuxuu ku yidhi labadaba iska daa hadda adigu wiil dhallinyaro waqtigan joogoo Nairobi joogaata laakiin waxaa laga hadlaya xadiidku ka hadlaya laba saxaabi waay nabigu wuxuu yidhi labadaba iska daa uuna sababeeyey midkood wuxuu yidhi wuu dil badan yahay hangoolka iyo burhka baa garabka u saaran qadha kaa dayn maayo waa nin dabeecad xuno gacan qaad badan midka kalena ma dabeecad xumo nin akhyaar u ahaa laakiin wuxuu yidhi shilin iskuma furto biilkaaga iyo mas-uuliyaddaada ma qaadi karo amaa mucaawiya fa suclukun laa maala lah shilin ma haysto iskuma furto dee reerkii haddaadan gabadhii waxaad guri ku geysato iyo waxaad ku biilato iyo meherad ayna kuguba aamini karin dee cidlo kuma tuuri karaan gabadhooda dabeecaddaada haddayna ku aamini karin oo berri intaad madaxa ka dakharto ood gacanta ka jebiso ay ka baqayaanna gar bay u leeyihiin iyagana waxaa laga rabaa inay ku soo baadhaan hadduu qofku diin iyo dabeecad wanaagsan yahayna gabdhaha lagu daro laakiin dhallinyarada waxaan rabaa inaan idhaahdo gabdhaha waa laydiin diidi karaa asbaab iyo cudurdaar sharci oo laydinku diidi karana way jiraan xalaal iftiin baa la qashaa laakiin aduu haddaad tidhaahdo aniga gabadha way rabtaa way ii diideen garna uma laha adigaa dacwoonaya adigaana isu xukumaya cid saddexaad oo idin dhegaysataad u baahan tahay dacwaddaada iyo garnaqsigaaga iyo dacwaddooda iyo garnaqsigooda saas darteed ama qaadiga aad ama gabadha faraha ka qaad wabillahi towfiiq